horta ilaahay baa mahad leh marlabaadka waxa mahad iyo bogaadinba mudan madashan quruxda badan leh maanta aynu ku caleema saarayno boqor maxamed boqor ciise waayeelka iyo waxgaradka haween iyo ragba iyo dhalinyaraba qofba taytalku doona ama salaadiin hasitee waxaan aad baan u bogaadinayaa madasha quruxda badan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanta kadib madashanu runtii dee aad baa looga hadlay munaasabadii iyo milgihii ay lahayd duca iyo dardaaranba waa laga yidhi waana maxay ahayday mudan tahay runtii in la yidhaaho kolley anigu waxaan leeyahay ducada iyo dardaarankaba waxaan la qabaa intii tidhi waayo waqti qoraxa baynu joognaado inaynu iska soo koobno hadalka ayaa wacan intii lagu duceeyeyna waan la qaba waa ku ducaynayaa intii lagu dardaarmayna waan maxay hayday ku dardaarmayaa waxa un baan ku darayaa laba kelmadood kow horta marka u horeysa boqorka waxaan leeyahay ducadaa laguu duceeyey ilaahay ha kugu anfaco aniguna kala mid baan ahay laakiin waxaa isku wadaasoo dhammi dhammaan wanaaggaa iyo ducadaasi waxay ku hoos jiraan ama ay ku aroorayaan waxa weeye inaad xadhigga ilaahay qabsato oo sharciga ilaahay aada raacdo dhammaan intaa afka laga yidhi iyo inta wanaagga kula jecel ee uurkeeda ku jiraa waxay ku hoos jirtaa xadhigga ilaahay inaad qabsato anigu waxaan kugula dardaarmayaa meella kama xigto meella kama jirta xadhigga ilaahay qabso oo nin diinta ilaahay ku dhaqan oo xadhigga ilaahay haysta oo waxay reebtay ka reeban oo waxay u bannaysay ay kuu bannaysay ku socda noqo dhammaan waxaas oo dham halkaasay ku wada jiraan arrintaa horta halkaasaan leeyahay waxaa kaloon ku darayaa hal shay oo muxuu ahaa aafooyinka maanta dadka rogay ee dalka rogay waa kelmadii wixii maxay halkan suldaan barre iminka uu ka lahaa 9 habeenimo qaadka waa tuu ka hadlaayay qaadna iska ogow ninkii cunay wuu qaataaye qaadna iska ogow oo yuu ku qaadanin oo haddaad cunaysay suldaan ama boqor maanta waxaanu leenahay waa kaaga ducaynanay halka aanu joogno haddaad hore u cunaysayna maxay hayday ku jooji haddaanad cunayna waad barakaysantaha allaha ku barakeeyo kelmaddaa iyada si gaara baan kaagala dardaarmayaa waayo xumaan oo dhan buu ehel u yahay dadka cunaya raalli ha ahaadeen waxa weeyaan xaqiiqadu taa weeye inta cunaysana waxaan leeyahay aafadaa iska daaya dhammaantiin inta ka mudantiin ciddii cunaysaa waxyaabaha waddankeenna burburiya buu ka mid yahay hadalka waxaan ku soo ururinayaa boqorka ama suldaanka horta boqor iyo suldaan iyo ogaas iyo dhammaan isim iyo qolo waliba waxay doontaa la baxday waa macna waaxida waa wax isku mida weeye waxaan ku soo ururinayaa waxa weeye beeshan maxay ahayday muuse abakor ee madashan quruxda badan le maanta joogta ee boqorka caleema maxayday soo dooratay ee annana aanu u barakayno oo u bogaadinayno waxaanu leenahay hadal hore in badan loo yidhi idinaa lahayden haddaanu odhan doontaan waannu idin leenahaye boqorkaa boqrateen boqorow keen idinkoon waxba u dhiibin oo hareeraha maxaa maalin walbaa magaranaysa iyo halkaasoo a kaga dhaqaaqdaan boqorka taa ka ilaaliya waayo waxa weeye ilaah baa wax astura laakiin boqorku marka xil loo dhiibo dhammaantiin magaciinnii oo dhan buu sidaa waa garanaysaan inta soo wajahaysa dee haddaydaan ka ilaalinin ood naftiisa iyo ta dadka waxa soo wajahayaba aydaan ka ilaalinin ma noqonayo kama fiyo nafta ibni aadmigu meel iskama fadhido dee waxay ku qasbi doontaa markaa meel xun inuu galaabay ku qasbi doonta taa waxaan leeyahay taana waa idinku adkaynaynaa waxaanu leenahay xoojiya boqorka maxayday sidii maxayday u boqorteen u ilaaliya oo maxay ahayday xitaa tii aan weydiintan ka hadlaayay weydiintu ceeb maaha laakiin marka waxa laga dhigo boqorka ayaa dee la yidhaha war boqorka aan gacanta la soo gelino laakiin imika waxay isaga badantay iyadoon ciidamo wax u dhiibin in la yidhaaho boqorkii haddana maxayday maalin walba inoo geeya taana intaasaan leeyahay
waxaan hadalka ku soo ururinayaa ilaahay maxayda boqorka boqor barakale ha inooga dhigo ducadu intii ahayd baan ku khatimay aanu intaa iyo in ka badan baan la qabaa aad iyo aadna waa idiin bogaadinaynaa boqorkana waa soo dhawaynaynaa